kulanti wanaagsan Ramadaan Kariim daawadayaal meel kasoo joogtaan maanta barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa xabad joojintii qase oo dhamaatay wejiga kale waxaa xigi doonaa shaki weyn oo ku jira inuu furmi karo wada hadallada qaybta labaad oo labada dhinacba isku hayaan waa Xamaas iyo Israa'iil dhexdhexaadiyaasha oo danaynaya in dib loo anbaqaado wejiga labaad oo mar hore la rabay inuu bilowdo laakiin hakad uu ku yimid kadib Israa'iil oo in badan ka xagal daacinaysay wada hadalka inuu sii socdo barnaamijka ayaan daawadeen qodobka kaga hadli doonay haddii aad ugu cusub tahay youtube-kan iyo facebook-gaana kusoo biir maalmaha labadaba facebook iyo youtube-ka kowac maysan samaynayna culaysaad ayaana naga haysa dhankaas ee daawada naga taageer like iyo share noo saar subscribe iyo follow-na nasoo dheh facebook-ga iyo youtube-keena aan ku bilownay magaalada qase waxaa ka taagan xaalad laga cabsi qabo in dagaalkii mar kale uu dib u bilowdo maadaama uu dhammaaday wejigii koobaad ee xabad joojinta magaalada qase oo muddo 6 asbuuc soconayay xabad joojinta ayaa maanta ku ekay iyadoo aad looga cabsi qabo in dib dagaalku u bilowdo marka loo fiiriyo saansaanta labada dhinac ay wadaan sida warbaahinta Al Jazeera ay tabinayso ururka Xamaas ayaa diiday in ay aqbalaan soo jeedin ay soo bandhigtay Israa'iil dhexdhexaadiyaashana ay u soo gudbiyeen dhanka Xamaas kaas oo muujinaya in waqti dheer lagu daro wejiga koobaad dibna looga wada hadlo wejiga labaadii waxa laga yeeli doono oo dhinacyadu ay go'aansan doonaan talaabooyinka ay qaadi doonaan Xamaas waxay ku dhawaaqday inaysan aqbali doonin in waqti lagu kordhiyo wejiga koobaad oo maanta ku eka taasna ay tahay wejiga labaad la anbaqaado oo la xiriira in ciidanka Israa'iil guud ahaan isaga baxaan magaalada qase maxaabiis saartana la isdhaafsado oo magaalada qase laga sii daayo xabsiyada Israa'iil laga soo daayo Xamaas hore waxay u sheegtay inay ogoshahay dhammaan maxaabiista Israa'iil oo gacanta ku hayaan ay ogolyihiin hal maalin ay sii daayaan oo haddii Israa'iil dhankeeda ciidankeedana ay kala baxayso Gaza guud ahaan maxaabiista Falastiiniyiintaana iyaduna ay hal maalin sii daynayso qolayska kale waxyaabaha abuuray waxaa ka mid ah maxaabiistii nooleed ee ugu dambeysay oo Xamaas ay sii daayeen beddelkeeda maxaabiistii laga rabay Israa'iil inay sii dayso waxay dib u dhaceen muddo asbuuc ku dhowaad kadib markii Israa'iil ay ka carootay qaabka Xamaas ee bandhigyada uga samaynaysay goobta lagu sii daynayay maxaabiistaasi waxayna sheegtay inay ahayd bahdil kadib markii mid ka mid ah askarta Israa'iil oo la sii daayay uu madaxa ka dhunkaday askartii Xamaas ee muddada 15 bilood gacanta ku hayay xanaanada wanaagsan ku soo xanaaniyay Xamaas waxay leedahay markaan waxaan diyaar u nahay in wada hadal la galo sidoo kale tan xabad joojinta rasmiga ah ee markii hore la ogolaa in wejiga labaad ay dhacdo la dhaqan geliyo hasaatee Netanyahu oo ka goosaysta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rabay in sidaas ay ku dhacaan waxaana la sheegay maanta uu Netanyahu laga soo xigtay inuu diri doono wafdiga dhexdhexaadiyaasha Israa'iil oo magaalada Qaahira la filayo inay ku laabtaan sidoo kale tana Netanyahu waxaa la filayaa inuu kulan la yeesho guddiga amniga Israa'iil kuwaas oo kala hadli doono sida laga yeelayo wejiga labaad iyo dhammaashaha wejiga koobaad Israa'iil waxay aad ugu bisbisoonaysay gaar ahaan wasiirada xagjirka oo xukuumadda Netanyahu ku jira in dagaalka dib loo bilaabo inkastoo shacabka Israa'iil in badan oo ka mid ah ay samidaasi rabeen dagaalka Israa'iil dhibaato xooggan ayaa ka soo gaartay marka laga tago burburka xooggan ee Falastiiniyiinta iyo magaalada qase soo gaaray dhimashada ka dhalatay dagaalkii soconay muddada 15 bilood iyo si lamida bil iyo xoogaaga hadda xabad joojintu ay jirtay ayaa waxaa kor u kacay mar ka dambaysa dhimashada dadka Falastiiniyiinta oo hadda 50 kun cagaynaysa halka 120 kun wax ku dhowna ay gaarayaan dhaawacyadii ka dhashay inta dagaaladaasi ay socdeen Xamaas oo saraakiisheedii muhiimka ahayd dagaalkaasi ku waayay ayaa waxaa loo arkaa in 40 iyo dhowrka maalin ee hadda xabad joojintan ay jirtay ay dib u habeyn aad u wanaagsan ay isaga sameeyeen taliska ciidamadooda taasina ay keeni doonto inay noqdaan ciidan kuwii hore ka awood badan ama soo bandhigi doona wacdaro kale oo ciidanka Israa'iil ku dhici doona halka la filayo Israa'iil dhankeeda ay ku tashanayso bombooyinka xooggan oo dowladda Mareykanku ay soo gaarsiisay dhawaan ayna isleeyihiin bombooyinkaas haddii lagu garaaco meelaha lagu malaynayo Xamaas inay ku jiraan waxaa burburi doona guud ahaan kaabayaasha Xamaas ay ku gambadaan halkaasna waxaa meesha ka bixi doona Xamaas guud ahaanteed oo magaalada qase maamulkeeda gacanta ka bixisa haddii Xamaas gacanteeda ay ka baxdo magaalada qase qorshuhu wuxuu yahay madaxweynaha Mareykanku uu asagu talo wanaagsan ka qabto sidoo aaminsan yahay oo aynu guud ahaan magaalada qase la wareego hasaatee shacabka Falastiiniyiinta marna ma ogola in taladaas uu wada madaxweynaha Mareykanka ee burburinta Falastiiniyiinta laakiin asagu u arkay dantiisa say u wanaagsan tahay in laga fuliyo magaalada qase Xamaas iyo Islaami jihaad ugu horeeya kooxaha difaacay magaalada qasana
waxay diyaar u yihiin dagaalka dib loogu laabto inay wacdarihii oo kale soo bandhigaan waa sida mar kasta ay halkurigyadooda ay kusoo muujinayaan. maanta oo wadahadalkii aanu dib u bilaaban xabajoojinta wejiga koowaadna u dhammaaday caalamka oo dhan wuxuu indhaha ku hayaa guud ahaan magaalada Gaza. sidoo kale kooxaha saameynta ku leh ee bariga dhexe ku sugan qaarkood ayaa hadallo soo saaray waxaana ka mid ah Xuutiyiinta oo tilmaamay haddii dagaalkii dib loo bilaabo in Israa'iil ay u geysan doonaan dharbaaxo aad u culus oo ay ka qoomamay doonto muddo badan. inkastoo Xisbullah oo markii hore garab istaag u muujinaysay Xamaas iyo kooxaha Falastiiniyiinta ee magaalada Gaza dagaalku ku haysto hadda aanay ku jirin dagaalka kadib jab xooggan oo ka soo gaaray dagaalka Israa'iil ee la gashay iyo madaxdeedii ay ku waayeen. saati waxaa dhici karta laftigoodu inay dib isu soo habeeyaan inkastoo uu go'ay xiriirkii ka dhexeeyay Iiraan iyo iyaga badankiisa oo ahayd Suuriya oo isku xiri jirtay. inkastoo ay jiri karaan ila kaleeto oo Xisbullah ay ku tiirsanaato oo ayna u soo marteen saadka Iiraan kaga imaanaya dagaalku mar kale dib u bilowday magaalada Gaza wuxuu noqon doonaa mid ka dhibaato badan midkii hore oo 15 bilood ka socday. sidoo kale tan wuxuu noqon karaa mid kale oo ka daba dheeraada 15 bilood wax ka dheer ama wax la eg ama wax ku dhow la socon karaa. laakiin shacabka Falastiiniyiinta ee danta yar ee hadda ku soo laabtay deegaanadooda ayay u badan tahay duqeymaha ugu culus ay ku dhici doonaan halkaasna dhimashadu ay noqon doonto mid hadda meesha ay joogto laba jibaarkeed kasii badan doonta. lase arki doonee halkay xaaladda ku dambayso oo waxaa dhici karta in dhinaca kale ilaahay uu u gadiyo maadaama bil barakaysan oo Ramadaan lagu jiro Israa'iil halkaasi jab xoogan ay ka qaadato oo burburkii Israa'iil aayadaha Qur'aanka ilaahay ku sheegay ay halkaas uga dhacaan.